دولدي والشعب دمرئي ورق دولدي والشعب دمرئي ورق سومالي وي اسكو دوبانتو دان لو دداليا سومالي وي اسكو دوبانتو دان لو دداليا ديديو شقادا لو داريري داوانايو ديديو شقادا لو داريري داوانايو ودالكاغي دقونيوهو ودادكاغي دباليوهو ودالكاغي دقونيوهو ودادكاغي دباليوهو ودقنيني 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 استريلو دادك سورا ودقنيني ودقنيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديا ميل بان naga daawanaysaanba ku soo dhawaada barnaamijka horumarka dalka aad inooga barateen maalmo Arbacada ah inaad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliya xaruntiisa magaalada London. barnaamijku waxaan la socodsiiyay waa aniga Xanaan Shidanaa. barnaamijka horumarka dalka waxaan ku soo qaadanaa mar walba dalkii Soomaaliya inta badan dadka qurbaha jooga waa inay dalkii inta aadaan ay la turkooduna wax weyn kana soo bedelaan una istaagaan si dalka ay wax badan uga qaban lahaayeen. hadduu ilaahay macaaw barnaamijku waxaan ku soo qaadan doonaa waa gobolada dalka Soomaaliya gobolka Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale gobolka Mudug oo meelo kamid ah soo qaadan doono. waxaan jeclaan lahaa qof walba oo Soomaaliya inuu fahmo ujeedada aan ka leenahay horumarka markaan leenahay inaanan meel gooniyana aan si gooni u soo qaadanayn in aanan Muqdisho kaliya aan ku ekaaneyn laakiin si aan jecelnahay in meel walba oo dalkeena Soomaaliya ee aad iyo aad u quruxda badnaa aan jecelnahay aan ka soo gudbino wixii horumar ah oo lagu soo siyaadiyo si aan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan adduunka tacaladiis ay u ogaadaan waxa dalka gudihiisa ka dhacaya. وهاجاج سيد عادة إنه هيد قد كتلفونات يدو سو قيب قادن كرتان هدو إلهي إدمو رأيجينا نواد نوصو بيري كرتان وانا ذيك جم هالعلن هيا سيد وناكسن واد مرة بقى رأيجينا كلا دوان أن نوصو بيرسان أن كوب اللعب وهدو إلهي إدمو قبل كشباب الدحى مقالة جوهر وضد اسكو xirta garsaale iyo degmada Jowhar ayaa waxa dayactir lagu sameeyay oo la doonayaa in aad iyo aad loo qurxiyo si ay gaadiidku ay ugu fududaato inay isaga gooshaan labadaas meelood iyo jidkaas oo markaad aragtay meesha jidku ku yaalna meel ay qurux badan ay tahay laakiinse annagu aan dib u harnayo oo ay xoogaa moodid inaan sidii aan dalkiiba annagu aan isaga burinay inaan jeedkeenina sidoo kale ayaguna ay dhibaato weyn soo gaartay. sidoo kale waxa kormeeray waa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe mudane Cali Cabdullaahi Xuseen iyo xibna uu la socday oo hogaaminayay oo soo kormeeray doonayna inay ka qayb qaataan kuna dhiirigeliyaan dadka degan degmada Jowhar iyo nawaaxigeeda inay ka qayb qaataan horumarka ka socda magaalooyinka isku xira iyo wadooyinka isku xira indhaahday magaalooyinka ka kala baxa gobolka Shabeellada Dhexe meel walba horumarka jirna waxaan jeclahay in la wadaagno bal marka ugu horeysa wariyaheena Maxamed Axmed iyo Jowhar daawasho wanaagsan. gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Gudlaawe iyo ku-xigeenkiisa dhinaca siyaasadda Yuusuf Cabdulla Yuusuf Jaalle ayaa maanta kormeer ujeedkiisu ahaa in ay ku horgalaan wadada isku xirta Garsaale iyo degmada Jowhar dib u dayactir ka soconaya iska kaashadeen maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe dowladda federaalka Soomaaliya ee ganacsatada ka howlgasha gobolka Shabeellaha Dhexe. wadadani ayaa markii hore xaalkeedu mid loo sahla oo aan wanaagsaneyn ayaa haddana fatahaadii sanadkeenu ka soo gudubno ku dhifto gobolka Shabeellaha Dhexe biyo ka soo rurmada ay buux dhaafiyeen xilligaas inay gaadiid aad u culus wadada isticmaaleen burbur aad u baaxad weyn uu soo gaaray. mas'uuliyiintan ayaa kormeerkooda waxay ka biloobeen inta u dhaxaysa tuulada Garaashka iyo tuulada Kongo iyagoo deeta u sii gudbay halka lagu magacaabo Kilimanjaro oo dhaxeeya tuulada Garaashka iyo tuulada Kongo. reenti waxa saxaafadda mas'uuliyiinta halkaas kula hadlay howlwadeenada wadadaasi dib u dayactirka ku sameynayo oo kamid yahay injineer Barqab. sunnaabe ka kooban kan dhexdiisa 5 kilomitir iyo 5 kilomitir shaqo waxa uu talagalay dib ah deeta rabban soo xigto naasbada magaalada biyaha ay wadada ku hin aan qabno
ayaa u talagalnay macnaa full rehabilitation maaha waa joojin oo loogu talagalay in dadkaas ku badbaado si deerta qabkana u yimaado inaan badbaadin waxaa isna halkaasi ka hadlay Axmed Xasan Barrow Araabi oo ku hadla codka ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaan u joognaa maanta in aan jid dhexeeyay magaalada iyo wax laga qabto ayna ka qabanayaan dadka shacabka ee Jowhar jooga hadday leeyihiin ganacsato hadday leeyihiin gaadiidley hadday leeyihiin NGO-yo local ah iyo shirkadaha oo isgaarsiinta iyo xawaaladaha ayaa ka qayb qaadanaya iyo maamulka gobolka waxaan ujeediyay walaalayaal dhibaatada ka dhacday magaalada aan ogtihiin meesha aan hadda istaagana waa meeshii diinta lagu gudbi jiray dadka magaalada ku nool oo baabuurka waxuu shaqo soo qaado laba jiblaankeed looga qaadan jiray 50 kilomitir marka waxaan waa wax dhig joojina oo hadda bilownay waxaa loo baahan yahay qof kasta in ay ka qayb qaadato hagaag waxaan jeclahay inaad ka bogateen muuqaalkaas iyo wadadaas la doonayo in dib loo habeeyo ee aad iyo aadka loo qurxiyo kuna taal actually jid qurux badan ee haddii aad fiiriso meesha dadkaas u mar doon la u gaari doona aad qurux badan tahay laakiin si ilaahay idinkiis waxaan rajeynayaa in qof walba oo Soomaaliya uu istaago dib u dhiska dalka wuxuu uu ka qaadan karo haba badan qof walba meel ayuu ka soo jeedaa degmo ayuu ka yimid tuulo ayuu ka yimid hadduu wax aad ka wanaajisid oo horumar dhamaanteen noo soo wada hoyday wariyaheena Maxamed Axmed mahad ka gaadho waxaan u malinayaa reer Jowharna waa ku badan yihiin qurbaha haddii aan iraahdo ganacsato badanna way joogaan qurbaha oo ka yimid Jowhar haddii ay actually wadadaas u istaagaan waxaan filayaa ganacsatada ka soo jeeda degmada Jowhar inay wax weyn ka qaban karaan caawin karaan maamulka iyo sida ay u doonayaan inay dalkii dib ugu dhisaan bal aan daawadaha ugu horeeya Janice iyo walaal aan ku soo dhaweeyo adoo magacaaga iyo meesha ku bilaabaya السلام عليكم أنا سيدنا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا كوسنا والله مقعد إيه مش جوكتان فوز حاش بطن والله أهلا كوسنا وين يا ما شاء الله ما فرحنا برامج كذا قروش ضمن 4 سنة عن كوب شاي قهوة أصلا درستي حلوة ده كان فرحنا هذا الصومالي هو المركز برامج كذا ضمن ما شاء الله هذه أدعو فرحتنا في السنة سنة كده دي سنة أشوف قدرنا نقبحها أنا كنا واسعنا أدعو صورنا أنا فاصل هذا ما هسن محات كرتن لهي ضدك أكتوش إذا دقمة جوهر وبدن كان عصد قربها جوجا إن شاء الله وحني لها إن حدثين وإن بيرين الناس فينا وهجاج عادي يا أمها سنتهاي ولا لون كاجم هاد علني وقت كاجا يرهاي كاجا وهجاج قفل بالصوماليا وحدونا dalkii isagoo qurux badan inuu arko hadii degmada ay hadii caasimad tahay meel walba dal kamida laakiin se aan ma doonayno inaan u istaagno oo aan dalkeena dib u dhisno waxa isleena dawladda ayaa noo dhisi doonta maamulka ayaa noo dhisi doona laakiin hadii aan la garab siin waxaan xaqiiqada waxa in iskiligood waxba qaban karin aan anagu isxilqaano qurbo joogtaba ha u badnaatee aan dalkeena dib u dhisno aan isku soo noqonay daawadaha aan Janice wallaan ku soo dhaweeyay magacaaga meesha naga soo wacaysa هلو السلام عليكم حنان أباي وحمد عيق وحالي عاشة أبوك القرقاب أو كسو جيد قبل كشبيلة دحي جوهر ما أنت والله ما كان أقدوي ما أنا وكو قاضي هاي فرحة ردد ما كان صومالي قبل بأنوسو ديس أو صومالي ودنيس كيمتا عوض فرحة قارة إيتا حنان فرحة قارة وأنا ما هتسمت أباي وانا كاعصد بروجرامك قبل كشبيلة دحي جوهر دكور أنو كل سو حرير أباي عاشة هذه يوم ما سنت لكن سأعطيك عن دونها يا بكو كتاب هذا بس برنامج كو بالله أنا أقول بالله عوض ما شاء الله مركا عرك قبل كشبيلة دحي جوهر أن كودش أن كوسو كوري ما أنت عوض أن كودا وردده تمام واي قبل كشبيلة دحي جوهر وأوجد قروح ريسي وناقيسي يورا مركا كبلاوضي علي حسين علي قول ولاوكي وسلامة تيم كيسة waxaana ka codsanaa jaaliyada gobolka Shabeellada Dhexe ee Joor ee ka soo jeedo meel walba ay joogto waxaan ka codsanaa 100 jeer
in ay ka qayb qaataan gobolka shabeellada dhexe ee jowhar wadada dhismaheeda fatahaada webiga ee beeraha quruxda badan ee aan leenahay oo gobolka caanka ku yahay sanad walba naga gooynayo oo badarka naga gooynayo oo galeyda naga gooynayo oo sisinta naga gooynayo oo nimcada iyo qudaarta iyo nolosha gobolka shabeellada dhexe u gaarka ah maalin walba aan newska aan ka fiirsano beeriyaa biyo ku fatahay gobolka shabeellada dhexe biyo xireenka ee sabuun waa xiri karnaa gobolka shabeellada dhexe joor wadada xamar iyo hiiraan iyo hargeysa isku xirtana waa dhisi karnaa annagoo dad u baahanin oon dad aan la kaashanin gobolka shabeellada dhexe waxaa la yidhaha dad reer joor jowhar jidda ka joog ama jowhar aa la yidhi adduunye jowhar aakhira janno jowhar waxaan nahay qabiil ma nihin qof walba oo heer jowhar waxay dhahdaa heer jowhar aan nahay aniga magaceyga waxaa la yidhaha caasho abuukar qoorgaab caasho jooreen ku magac dheera caasho joore maalintan qurbaha imid qof walba waxay leedahay gabadhaan yaa waaye anu heer jowhar ahay aan dhaha magacaas oo igu baxa abaay waxaana ka codsanaa waxaana kaa codsanaa adiga bisaad in aad isku xirto dadka gobolka shabeellada dhexe ee jowhar taaniyan jaaliyadda anu waxaan joogaa netherland aan joogaa waxaa naga activesan dadka jaaliyadda heer jowhar ee ingiriiska kula degan waxaan ka codsanaa jaaliyadda heer jowhar ee ingiriiska 100 maraan arka ayagoo dhaqaale u aruuriyeen gobolka shabeellada dhexe ee jowhar annaga ma haysano dad oo niskeen xira meesha magaalada netherland aan ku noolnahay heer jowhar aan dad niskeen xira ma haysano waxaan ka codsanaa jaaliyadda riya oo ingiriiska in ay sameeyaan yurub oo dhan gudoomiye isku xiro akoon u furo magaca heer jowhar u gurmadaan kaa codsanaa abaaye inaa noo soo fariisisid gudoomiye oo jaaliyadda jowhar matalayn waa kaa codsanaa sida gudoomiye madiine aad soo fariisisid abaaye insha allah caasho waxaan jeclahay inay maqlahayaan dad badan oo reer jowhar ah inayna isku xilqaami doonaan sidii ay mas-uul inta u doortaan ay ugu istaagi lahaan inay u caawiyaan degmada jowhar mahadyaa kaa gaadha caasho insha allah adigana jowhar ayaan kaa sigi doona idin mahadsanta abaaye waa mahadsanta xamaasadeedana ma la sheegi karo gobolka shabeellada dhexe geeska gees waa salaama dadka heer jowhar waa salaama madaxda iyo tiimka cali guudlaa waa salaama qurba joogtan waa salaama boorka iska jafno sanad gudaheedan jowhar ku dhisi karna jowhar qabiil ma taqaaniin heer jowhar magaca jowhar la soo saaro gobolada soomaaliya gobolka ugu quruxda badan aan degana dad uma baanin ilaahay ma qofaan eena baay waa mahadsan tahay aad iyo aad ayaa umahadsan tahay caasho waan kaaga mahad celin walaal waqtigaaga iyo ra'yiga iyo dhiirigelinta aad usoo jeedisay dadka kasoo jeeda degmada jowhar waad u midaysay ama aad ugu yeertay inay u istaagaan si gaar inaan ku casuuno waayo adigana baay qaran dhistaan ku bixi qaran dhista baay mahadsanid walaal aad iyo umahadsan tahay marka dadka reer jowhar sidii ay caashaba ka dhawaajisay waa inay isku xilqaamaan sidii ay wadadaas quruxda badan ay u caawin lahaayeen ama ugu gargaran lahaayeen ama degmada dhammaanteedba ay uga qayb qaadan lahaayeen sidii horumarka lagu gaaray ama magaalada loo qurxiyo waxaan ognahay inaan kulligeen haddii aan isku duubano wax kasta aan dhisan karno ka maarmi karno shisheeye ama aan leenahay dawlad iyada dhisi karto shacabka haddii ay u istaagaan waxaan ogahay inay aan wada ognahana dabcan inay waxyaaba badan ka bedeli karaan insha allah reer jowharna waxaan sugahayaa hadduu ilaahay idmo inay gudoomiyahooda iyaguna isku xilqaami doona inuu qurbaha iyo kuwa jooga dalka isku xiri lahaa ee u istaagi lahaa sidii uu ku caawin lahaa dadka degan jowhar iyo dibudhiska dalka bal aan isku soo noqonay daawadaha xigaan jaanisi walaal aan kusoo dhaweeyay magacaaga adoo ku bilaabaya asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi walaal magacaaga iyo meesha naga soo wacayso faaduma la yidhaha walaal kaa soo waca faaduma aad ayaan kusoo dhaweey walaal see baad u aragtaa wadadaas weyn ee dayactirka lagu sameynhayo ee ka socota magaalada jowhar xanaanay aadaan u mahadsantaha adiga iyo tv-ga shaqaalaha dhab weyn salaamayaa mid ka qaalisan muge waa wax fiican oo dalna waxaa dadkiisaa dhisto haye muge waa inaan ka qayb qaadano see baad looga qayb qaadan karaya sida faaduma waxaan uga qayb qaadan karnaa oo iyadoo gacmo la isqabsado oo dadka dham gacmo isqabsadaan waa hagaag aad iyo aad ayaa umahadsan tahay insha allah waan rajayn doonaa inta u istaagaan dalka ay dib dhuska ay ka qayb qaataan maxaad u rajaynaysaa oo is leedahay way si gooniya ay isugu qaban kuwa dalka jooga iyo kuwa gudaha joogaba kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga gacmaha hadday isqabsadaan ay wada xeeto waaba la xiriiraa ee gacmaha isqabsadaan waa dalkayna waa dhisa karnaa dalkayna waa hadda waa ka ciidankayna guulo u gaaray guulo la taaba kara waa aadaan ugu faraxsanaha wallaahi guulahay gaareen mid la koobi kara ma ahan mugo ciidankayna kor allaha ka dhigo amiin waa mahadsantaha faadum walaal waa kaga mahad celinaya waqtigaaga iyo ra'yigaaga mugo xanaanay adigana howl fiicanaa qabatahay kor allaha ka dhigo aadaan kugu faraxsanaya dhammaanteen amiin walaalo thank you very much waa hagaag
qof walba wuu jecel yahay dalkii inuu quruxdiisa arko aan wadamadan hormaray waxaan ognahay inaad markii aad for example haddaan London ka baxnay aad gobolada London aad gobolada UK ee kale taadayso jidadka waxaa yaalo aan isku soo noqonay daawadaha xiga aan jaanisiyo wallaan ku soo dhaweey magacaaga adoo ku bilaawhay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حنان شدنا ومريم محمد جمعة مريم جعال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مريم جعال مريم ودني عادي أنكو سدوينيا هذا أمة صنت هاي برنامج كذا أو جور الصوت دايسي أو مرول بالصوت دايسي أنا جو كفر أحسن عاو حنرب ما دام هو مركز دلك ويا برنامجك عاو حن لنا فرحت وحن وفلم برا ويا عضلة ماشي عدو ودتك كل بيجري أما كدوري جري أما حقوق الصوت جيران بحش عاورت وحافظنا إنه براء والصوت ديستو أنا غير براء وميه لكن ضدك الصوماليات بيقطع إيد أسويته فرحات أسويته حالها إزدبجوج وضلك هرت كجري يسديس برنامج صح رجور وحن ربعنا نكلك عيب قاتنا دام هذا أنجور الصوت ديستون أرجني هذا كهران الوجود الجب إيه شباب لا جد كأنه مرة جور أنا جا إسكال إيه بيرت جلب كتال جنة الدنيا قبنا إيميل جوكر مركز جنة الدنيا قبنا إيميل جوكر الحمد لله غير جور وحنا لا سد عادك عاد وشات أما إيجا وشاجن إن يسكو حرمان أو ودود إيدل كود إيدستان وعن ربع حناني إن عاد أقلاته إن أنا عاو همبليو يبوجا هود أمريو إذا ما رجعشان بيجا الصوماليات إيميل ولي بيجوجو عدو النجو حرية إسباشل أبان دولك إذنك gaashaan dhiga Soomaaliyeed mudane Cabdirasaaq oo mar walba nafsiya magaalada la xureeyo iyo sidii looga baxo dhamaantood waxa kala raba ayagana bogaadin inaan u diro Master Tuuriyare Liibaan Cali Yarow nimanka amniga ka shaqeeyo ee maantay gabadhii shalay 9 jirka ahayd ee la xoogay u soo istaajiyay ninkii xoogay in la toogto dhamaan horumarka dalka ka socdo ma soo koobi kara xanaanay alxamdulillah ma hadda ilaahay yaa iskale Soomaali waa socotay saanqaad Allah ku daraan leeyahay maanta waxaan aragnay jaamacadda ummadda oo intii la furay 300 iyo haaf ciyaal ah oo free wax lagu baraayo marka Soomaali wax u dhiman ma jirto waxaa dhiman dadka qurba joogta ah oo xanaanay maalin walba qaar Allah ku sii aad soo deyso war inaga intaan shirno walaalayaal aan tashano hal shilin haddaan meel ku dhigna badweynta Hindiya la dagaalanka badweynta Hindiya ama wax kaga qaban karnaa ama meel kale wax kaga qaban karnaa marka dhamaan qurba joogta aan leeyahay ma marjacaalay sababteeda waa looga qayb qaadan karaa badweynta Hindiya iyo sidoo kale dhamaan dalka horumar ka socda sidaad ka dhawaajisay degmada qaadan karaa xanaanay horta dalkeena adduunyada waxa ay nasiinayso waa waxa inagoo kale aan aruurino shan shilin iyo wax yar oo aan ama kafee ku cabno ama koob shaah ku cabno aruurina insha Allah waanu isu ilqaamayna mar dhowna inaan insha Allah rajaaliyada joogto London anaga hadda maadaama reer London nahay inaan intaan fadhi suubsano aan meeshaas bogaadina ka jeedino wax alle wixii aan ka qaban karna aan qabana doo Ilaahay ka raali noqdo marka waxa loo qaban karaa shirar isu imaad wada hadal waa noo socdaa hadda insha Allah taala hadda Ilaahay ka raali noqdo marka dhan walbaan rabna inaan ka qayb qaadano madaxweynaheena Xaaji Xasan Sheekh Maxamuud oo xajka Soomaali uga soo ducay Ilaahay ducadiisa ha noo aqbalo Ilaahay ducada muslimiinta ha noo aqbalo dalkeena cadowga Allah ka qaado waxaan rajaynaynaa oon rabaa caawa ciidanka gaashaan dhigiran hawada u mariyo waxaa idin dhiman galgaruud dhulka ka tirsan oo la yiraahdo wabxo iyo dac iyo diri iyo galhareeri iyo ceelbuur waa sidaan oo kale iyagana mar dhow in la soo daayo dalka meel yarba hadda ka haran isleeyahay meesha yaroo ka harsan iyo gale inta yaroo ka harsan iyo jubbooyinka halka tuulo meesha cadow waa tagaye insha Allah culayska Soomaaliyeed cadowgaasu ahaa isagana waa dhamaaday inta u dambeysana waxaan leeyahay ciidanka gaashaan dhiga caawa meel walba ila joogaan ay igula ciidayaan nafaqadiin waa gul neeftiin waa calan natiijadiin waa gobonnimo lagu nasto lagu nagaade hanoogina geesiyada naqya doog nuurka u baxayo neeca xornimo nolosha urte hanoogina alle
taliska nuguloo niyad jabkaayo nafla caariga naxashka saaran oo nabadiyo wanaagii waadiga naceenu nabarada wadanigu ay kugu naafinayaan al-shabaab allaha bixiyo insha allahu tacaala. xanaan waa mahadsantahay, aad iyo aad ayaa umahadsan tahay marin jacayl mari wadani. waan kaaga mahad celinaya dhiirigelintaas aadka u wanaagsan iyo tahaniyadaas aad u gudbisay ciidamada qalabka sida ee dhammaan dalkii Soomaaliya inta badan ka xoreeyay dadkii nabadiidka ahaa. ayagana Ilaahay wana waaxidka xaq ha waafajiyo waa umma Soomaaliyeed oo la qalday ilmaheena naga sadarteen laakiin se Allah xaq waafajiyo ee dabaaqada ilmaha yarka ah nooga jirin Allah nooga soo saaro. wahagaag waxaan jeclahay bal haduu Ilaahay idmo inaan klibka xiga muuqaalka xiga ee barnaamijka ku soo qaadan doono aan u gudubno waana magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo iyadana wado laga sameeyo wadooyinka ayaan jeclaan lahaa dadka inaan ka qanciyo aan dadaalaya laakiin inaan intii tabarteeya aan haduu Ilaahay idmo dibna aan uga hodeyn doono wadada ka baxda magaalada Gaalkacyo oo gaari doonta ilaa iyo Hubiyo haduu Ilaahay idmo oo ay la doonahay muddo 3 bilood ah in lagu dhameeyo. Allah la garab gal waa hawl culus. waxa ka kaashaday hay'ado shirkado kala duwan iyo ganacsato Soomaaliyeed ee jooga magaalada Gaalkacyo. sidoo kale mas'uuliyiinta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa dhagax ugu horeeyay dhigay kun dhiirigelinaya dadka Soomaaliyeed ee degan magaalada Gaalkacyo inay iska caawiyaan isna kaashtaan wadad wada dega oo walaalo ah. jidkaas hadii uu marka la dhameystirno waxay u noqonaysaa horumar iyo hawlo badan oo kala xiriirnaa jir ayaa u fududaanaya. Ilaahay idinkiis marka waxaan jeclahay bal inaad muuqaalkaasna ila daawataan oo mas'uuliyiinta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ay dhagax dhigeen oo ay ku dhiirigelinayaan dadka Soomaaliyeed la wadaagaan. wariyaheena Cabdirasaaq Maxamed ayaa noo soo diyaariyay daawasho wanaagsan. dhismaha wadadan oo gaaraya ilaa 1 kiiloomitir iyo barlaamiya ayaa waxa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug iyadoo munaasabada dhagax dhiga ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka socota hay'adda aylo maamulka dawladda hoose iyo mas'uuliyaguna ka socday kambaniga oo shaako isagu ku guuleystay dhismaha wadadan. ugu horreynna waxa munaasabada dhagax dhiga wadadan ka hadlay gudoomiyaha degmada Gaalkacyo iyo gudoomiyaha gobolka Mudug ee dawlad goboleedka Galmudug waxa ay sharaxaad ka bixiyeen dhismahan cidda iska kaashanaysa muddada uu soconayo. dadkay uga hordhisan yihiin dukaamadooda jiingadaha sidoo kale barkadaha. waxaan sidoo kale u baaqayaa dadka xayeysiintu ay u saaran tahay inay ayaguna kala baxaan tabeelayaasha xayeysiinta. sidoo kale waxaan ayagana u baaqayaa isgaarsiinta baalayaasha isgaarsiimaha iyo kuwa korontada inay ayaguna la baxaan oo ay fududeeyaan. baarlamaanka wasiirada iyo hay'adda aylo dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay wadadan saaka la dhaxdhigayo isgoodka tanboorka maaragtay Gaalkacyo ama toonka dhinaca Galmudug Gaalkacyo. waxaan leenahay maalin wanaagsan wada laamiya halkan laga sameeyay. waxaan rajaynayaa inaysan joogsan ilaa Hubiyo. waxaan ilaahay rajo waqnaa waxaan u mahadcelinaynaa hay'adii arrintan isku xilqaantay inay qabta qabato. waxaan leenahay tii hore noo qabateenna waan kaga mahadcelinaynaa tana bilowdeena waa ku mahadsantihiin. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay injineer Ciise oo isna ka socday hay'adda aylo. anoo injineer Ciise Cumar wakiilna ka hay'adda aylo waxaa sharaf weyn oo ah inaan maanta ka soo qayb galo dhagax dhiga u sameynayno wadadan la baxday Hubiyo Tarba Road liibaado oo wada 1 kiiloomitir laamiya. kambaniga liibaado oo shaako ayaa mataqaana qadaraadka ku guuleystay isagana fulinaya muddo 3 bilood baa lagu talagalay in shaqada ku dhameeyo. insha Allah waxaan rajaynaynaa mataqaana inay hawsha mataqaana ku dhamaato iyo mataqaana quality laga rabay iyo sida design ku ahaa inuu raaco oo kalsoonahay in mataqaana shaqada si loo talagalay soconayso. ugu dambeynna gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug Xasan Maxamuud Hayl ayaa isagu halkaas khudbad ka soo jeediyay isagoona ka hadlay arrimo fara badan oo la xiriira nabadda gobolka. waxa fursad u ah dawlad goboleedka Galmudug oo ka degan qayb Gaalkacyo wadadan laamiga ah oo ay maalgelinayso aylo sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maayarka iyo gudoomiyaha gobolka ugu dambeeyayna injineerka dhisaya wadadan
waddadaas in loo dhiso sidii loogu talagalay dadka waddada hareeraheeda deganna inay ay sahlaan. waxaa kale oo fursaddan aan uga faa'iidaysanayaa maantay inay tahay 21 Sebtembar maalintii nabadda adduunka oo aan qayb ka nahay oo Soomaaliya ugu baahi badan tahay. marka waxaan rajaynayaa in nabadda laga wada shaqeeyo. waxaan rajaynayaa nabaddu cid walbay dan u tahay. dhismaha waddadan ayaa iyadu waxa ay noqonaysaa tii labaad ee ka bilaabata magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dhinaca uu ka arrimiyo maamulka Galmudug muddo dhowr bilood gudahooda. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka. aad iyo u mahadsan yahay wariyaheena Cabdirasaaq. waxaad arkayseen inay mas'uuliyiintii maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ay dhagaxii u horeeyay dhigayeen aysan ahayn wadadii u horeysay ee dhagax dhigaan, laakiin se qof walba Soomaaliya waxa la gudboon hadduu mas'uul yahay iyo haddii uu shacabka yahaba inay horumarka dalka ay ka taliyaan iyo wanaaga iyo nabadda iyo isku soo jiidashada bulshada dhexdeeda ay ka abuuraan. magaalada mahad ka gaadho. waxaan jeclaa baldaawadaha inaan jaanisi walaal aan ku soo dhaweeyo magacaaga adoo ku bilaabahay idanka Rabbi. hello hello magaalada daawadaas oo helay weyne insha Allah dib ayaan ka heli doonaa. waxaan jeclaan lahaa aniga ahaan inaan qof walba oo Soomaaliya aan ku qanciyo meeshii uu ka yimid ama uu ku soo barbaaray ama uu ku dhashay xuduntiisa ku dugan tahay. waxaan barnaamijyada hore ku soo qaadanay waxaa kamid ahaa dhalinyaro Soomaaliyeed ee iskaashatay ee qurbaha kuwa jooga iyo kuwa dalka jooga gudihiisa ay isku xir sameysteen xiriir oo ka dhaxeeya degmo oo aan wax kale ku heshiin ee isugu tagay ama isu kaashtay inay ay u istaagaan sida ay degmadooda isku horumarsan lahaayeen. waxaan aaminsanahay inuu qof walba oo Soomaaliya kan qurbaha jooga iyo kan dalka gudihiisa jooga haddii ay xiriir degmo ahaan sameystaan maamul sameystaan inay wax badan ka bedeli karaan horumarka dalka kuna soo kordhi karaan waxyaabo badan. aan daawadaha Jaanis iyo walaa aan ku soo dhaweeyay magacaaga meesha joogta. abayno aadaha aniga Maxamed Raax ayaa dhahaa wala sheexanaan Maxamed hadlaya wadon xaafadda Grisro wala ku maasantay maartay iyo gudbinta aad u gudbiso iyaada aad ayaan ku soo dhaweynaa walaalo. abayno waxaan rabaa inaan ka hadlo horumarka wadanka maadaama aad dadka cagtiina oo jecelahay wadankeena inaan ogaano. haye marka waxaan rabaa inaan ka hadlo xagga beeraha wadanka oo loo baahan yahay. aniga waxaan jeclahay beeraha markay beeraha la hajifay waxaan jeclahay in dadka Soomaaliyeed beeraha ay horumarkooda ay wanaajiyaan. dadka dhibaataysan oo qaxootiga oo xamas ku dhisan inay beeraha bashaan ee dawladda ku tabarrucdo horumarkii wadankii uu ziyaado u sii noqdo abay fiican. maxamed aan ka dhex galay hadda ka hore waxaan soo qadanay janaale iyo beero aad iyo aad u qurux badan oo la sahayo nacfiga ka soo baxa iyo qudaaraha kala duwan ee ka soo baxa. haddii aan caawa barnaamijkan ka hadlayno aan ku soo qaadanay yahay wadooyinka dalka Soomaaliya meelo kamid ah gobolka Mudug iyo Shabeellada Dhexe, maxaad is leedahay waa la gudboon tahay dadka qurba joogta ee ka jeeda magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe? abay horta waxaan ka hadlayaa horta gobolada dhexe waxa gobolada dhexe maanta hadda indhihi karaa waa markii ugu ficnaad ay horumarkooda ay ogaadaan ayagoo muddo dhibaato ku jiray. haddana mar haddii horumarkooda ay ka talinayaan inay wado iyo waxyaabaha loo baahan yahay sida airboorada wadooyinka badda dekeda in abay macaanay dadka meeshaas degan ayagu quseysaaye aysa cidda kala tusano danahooda ayagoo u walaalnimo jecel gacmaha isqabsada abay horumarkooda ka tirsan waa wax loo baahan yahay. waan ku farxaa maadaama arkay qobyo oo dib loo dhisay. insha Allah walaal aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed Raaxeye oo naga soo wacayay magaalada London. mahadsanid walaalo. waxaan ognahay dad badan oo Soomaaliyeed oo Gaalkacyo kasoo jeeda ayaa waxay joogaan qurbaha. ma aha anigu inaan u tilmaamo, ma aha inaan qof kale oo Soomaaliya ku tilmaamo horumarka dalka socda iyo sidii aad u qayb qaadan lahayd. adiga shakhsi ahaantaada waa inaad mas'uuliyad iska saartaa oo xaq lagu leeyahay dalkaaga xaq ayuu kugu leeyahay. qurbahan dhalanteeda inaan joogna dib ayaan uga noqon doonaa idan Rabbi. aan wax inuu ka geysto waxay taaba haddii aad wax ku taageeri karto haddii aan tagto xataa ifan dhagaxaanta aad wax ka dhigi karto maadaama mas'uuliyiintiiba ay dhowbadii ugu horeeyay ay dhigahayaan wadooyinkii iyo jidadkii iyo meelihii danta guud ee dadka Soomaalida shacabka danta ugu jirtay. aan soo noqonay bal daawadaha aan Jaanis iyo walaalan soo dhaweeyo. hello
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أدين كوسد وين يا مقعد ماشي النقص وعيسو. ها والله محمد أول أنا هذا مجال السمع الناس. محمد. ها. أدين كوسد وين ولا له. سبعة واركت هرمرك كسر ضلك جودهان ونعاو كسر قادنا إني نشيدتك كبحة مقالوين كضلك سومالي كمده. والله يورتا هذه هذا هرمرك هذا كسر dadka Soomaaliya aad ugu fiican yahay horumarada wadooyinka magaalada Muqdisho hataa oo hadda laga sameeyo iyadoo hadda u muuqato xataa Soomaaliya inay soo noqoto nacam marka aad iyo aad aan u baleenayaa waxaan rajaynayaa in horumaradaasi waxa weeyaan dowladda iyo dadka shacabku ay ku dadaalaan si u sii horumarin lahaayeen waa barnaamij aad u fiican barnaamijyada kale hadaad qabatiin oo dadka lagu dhiirigeliyo in ay oo hawshaas markasta oo sidii wadanka loo qurxin lahaa wadooyinkiisa iyo marka maxaa wadanka khayraadkiisa oo dhan laga faa'iideysan lahaa aad iyo aad ayaan u hambalyeynaa maxamed aad iyo mahadsan tahay aan arbaca kasta ayaan soo qaadanaa muddo hadda 2 sano iyo dheeraad ah lagu socdaa waxaan jecelnahay inuu soo gudbino dadka Soomaaliyeed meel oo dalkii horumar laga sameeyo hadii ay tuulo tahay iyo hadii ay caasimad tahay iyo hadii ay gobol tahayba aad iyo aad baan ku salaamayaa barnaamijka quruxda badan ee wadi aad iyo aad ayaan kaga mahad celin walaal waqtigaaga iyo ra'yigaaga maxamed oo mahadsanid walaalo ama dawadaha xiga aan jaanisiyo walaal magacaaga adoo ku bilaabay insha Allah السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. والله الموعي وراحة محمد علمي وعن كل شيء جوك شبيلة دحاول كفرح سنة هاي مرتعلي جود لا مركي لدورتي بسريع هذا أو فرحي. هيه ضدك وحتى هيك كذا دقمة جوهر سيدي أشكتي نعمة. جود غير جوك شبيلة دحاء هاي وكل شيء وانكو برباره وإذا كل لبتي. هذا حاجات نعمة. يا. حاجات تنقص وعيسان. jarmalka qurba joogta ayaad ka mid tahay dadka loo baahan yahay dalkii inay qaataan horumarkiisa على جود لا يحاسكيس حليم جود لا هذا أقانا ما شاء الله قول كان وحى هوال إنه وحسي عن أقبنايو أي محل إسلام هذا ولو كردي كرا قرب شوكت كل كردي كرا أنا كعاو كرا على جود لا ويا دمان قبل كشبه هذا الدحى قرب جوكت هرت رير جوهر واي أما جريرها هذا مسجل هذا عدو دونها هذا أنا ما كلا بحنو الصومالي وأون مد ولا مية رير جوهر قبيل مرعبايو صح رير جوهر ياته هداترا رير جوهر هاي كلها انت سياب وفلن قرب جوكت ونا هاي وحن ديار ونا هاي لا دسن كرنو وهجاج مرك كم واحد إسلام هاي هلا قيب قاتو horumarka ka socda magaalada Jowhar iyo dhamaan gobolka Shabeellada Dhexe qurba joogta iyo ganacsatada ma isku si aad u gudbinaysaa message-ka mise ganacsatada ayaad gooni jeceshahay message u gudbiso wallahi waxaan gooni u gudbinaa qof walba oo gobolka Shabeellada Dhexe ka soo jeedo waa hagaag ganacsatada ha ahaado mase qurba joogta ha ahaato mase kuwa wadanka wax ku heesta ha ahaado waxaan baaq u dirayaa in Jowhar laga dhigo sidii Geneva oo kale إن شاء الله أنا ذكر جوهر أي سويسة وأنا درس إلى بسنة هيا وجوهر كبحث أو تجلس إلى مقدشو هذا وان أركاي صراحة أركاي ودر كونكو أو دسمك صعته نعم ومقالك استدل كذا ضد كذا يا نسكر كو قربها تشوج يكو جودها تشوج هدي إسكاشدانا وحقيقة إن مقالة سقروح بدن يصير هراي وهاي جوهر لوي قناة سك وناقصن أي جالسين كلام علي هذا وحن باخذ دراية قرب جوجتو إن أي صندوق سمستان سيدا قفل بقى قبل كسو جيدو بالولبو ولعب وغردو إن شاء الله وآدي يوم ما سنتهاي وإن شاء الله إن يريجوهر كل جيسنا هيان أي مؤسس كاسنا أي قادم دونان سكول حل قام دونان سيدي أي وقع قاضي لهين هور مركز عدا لما نقول كشبل ذا دحى أيوه تجمد جوهر بقى ما هالسرد النعيمة وهجاج هدي جوهر لقرحيو ودوين كذا مقالة أهم بس قرح بدن لقديقه حقيقة waxay tahay u soo hooyanayso horumar u soo hooyanaya dadka ka soo jeeda degmada Jowhar guud ahaan reer Jowhar marka la yiraahdo waa reer Jowhar so waxaan ognahayna inay hadii ay u istaagaan inay wax badan ka bedeli karaan degmada Jowhar magaalo aan ka sheekeyn kara ma ahan inay qurux badnayd inay aad iyo aad magaalo qurux badnayd ahayd in qofka markuu yiraahdo Jowhar ayaan ka imid oo proud dareemi jiray oo farxad u dareemi jiray haddana waxaan jeclahay inay sidii si ka daran ay isku xilqaami doonaan ay u istaagi doonaan sidii ay horumar ku gaarsi lahaayeen degmada Jowhar
daawadaha aan jaanisi walaalan kusoo dhaweeyay magacaaga meesha joogto. Assalaamu calaykum. Waalaikum salaam waraxmatullah. magacayga waxa la Farxaan Axmed waxa ku sugan dalka Sweden. Farxaan walaal aad ayaan kusoo dhaweynayaa. waa kuwa horumarka oo gobolka Shabeellada Dhexe laga hadlayo oo soo dhaweynayna waa arrin aad u wanaagsan iyo horumarka dhammaan dalka. haye see lagu qayb qaadan kara ayaa isleedahay qurba joognahay. inkastoo caawan ka jeclaan lahaa in saldhigga Baraawo loo aruurinayo macnaha iyo xarunta degmada Baraawo macnaha insha Allah barnaamij gaar oo ku saabsan Baraawo dhawaan ayaa TV ka daawan doontaan hadduu Ilaahay marka arrin aad fiican waxaan ficnaan lahayd in dad wax garada oo mas'uuliyad ay soo fariistaan oo gobolka dadka u dhashay oo isku dhaf intay soo fariistaan ay dhaqaalo u aruuriyaan oo leeyahay akoonkaas wax loogu shubo markaas waagaag marka waxa leedahay haddii ay qurba joogtuna qayb weyn ka qaataan wax un ay ku kordhi karaan dibadhiska dalka wax badan ku kordhin karaan jawar uma baahna dhaqaale loo aruuriyo laakiin lagu sii simo weeye ayaga mashruucooda ay u imaan doonaan hadii la hadlo insha Allah walaal aad iyo aad mahadsan tahay Farxaan waan kaga mahadcelinay waqtigaaga وهجاج براوي waxaan ognahay inay tahay magaalo xeebeed qurux badan ee Soomaaliya leedahay meelaha ugu quruxda badanna kamid tahay dalka Soomaaliya waxaan ognahay in laga xoreeyay kooxda nabadiidka ahayd laakiinse ay meelo kamid ah dalka ay meelo yar uga hareen insha Allah inta meelahaasna waxaan jeclahay haduu Ilaahay idmo inay kuwa ku joogan ay soo dhiibi doonaan kana waantoomi doonaan qadka ambulance soo noqonay daawadaha aan jaanisiyo wallaan ku soo dhaweeyay magacaaga meesha joogto السلام عليكم. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله والله المقعد. والله السلام عبد الرحمن محمد جرسوالي هذا أو مارتي جوجا ودن كان هولون. عبد الرحمن آدم كوزد وين ولا لا؟ والله برشون أحسن وكل وقت سلام يا دينا بشارة. متكقالس ولا لا؟ ودنا سنتين برنامج كان برنامج في عن وايا مارتي ودن كاسمي سي مارت هرمركي سي مارت محمد كرالا. inaan maartay wadankeena dhisannana anagay muhiim noo tahay ama maartay waxaan ku raadaa waana nugu qasban waayo maana insha Allah taala waxaan ognahay wadamadan horumaray inay aad iyo aad aan waxyaabo inta uga faa'iidno aan dalkeena inta la tagno aan wax ku qabsan doono qurba joogta aan wax ku bartay dalalka horumaray maxaad is leedahay ayagu in dalkii dib u laabtaan ku kordhi karaan wallahi wax badan baa lagu kordhinayaa teeda kale waxaan ku kordhinaynaa mid u horeyso wadan jacayl horta marka hore waxa ku tusinaysaa wadankaada inuu wadan aan ku dhaamin inaysan jirin mid u horeyso taas waaye tan kale waxa waa wadankaada inaad dhisatid oo ku qasban tahay sababtoo wadankaada ahayn waxba kuma noqdo ma annaga meeshan hadda aan joogno waxaan ku hayno male waxaan ku qasbanaa wadankii inaan ku noqono dhismihiisa ka qayb qaadano wadankana waxa lagu dhisi karaa kulli waa Soomaalida qaasatan reer Jowhar waxaan leeyahay in maartay maxaan ku raadaan samaysataan isku xirnaan isku duubni iyo walaaltinimo awalba waa lagu yaqaanay Jowhar dadka ka soo jeedo inay yihiin dad midnimadii oo lagu yaqaanay wiligeed ku ahaan jireen inay ku soo istaagaan akoon samaystaan dhaqaalihi meesha lagu rido maxaan ku raadaa si wadankii dib loogu dhiso oo kaliya ma wadan kaliya ma dadkii baa dhibaataysan oo wadankii oo dhan aa dhibaataysan maxaan ku raadaa wuxuu u baahan yahay wadankii dhulkii laga soo kaco dhismihii wadankii maartay maxaan ku raadaa gobolkii qaasatan dadkii tabaaleysnaa qaasatan maxaan ku raaa wadankii oo dhan waa loo baahan yahay wax la qabana maartay horumar loo sameeyo oo maartay annaga dhan wada sugayso insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan qabano haddii ay maqlayaan qurba joogta ama meel waliba ay joogaan ama ganacsato ahaada ama maartay maxaan ku raaa shacabkii Soomaaliya oo qaasatan reer Jowharka ah haddii maqlayaan aniga ku hadlayo magaca reer Jowhar waxaan leeyahay walaalayaal oo istaaga waa taqaaniin Jowhar waa meeshii nimcada ahayd aad ku dhalateen aad ku soo barbaarteen waxaan idin leeyahay insha Allah taala garabkiina Allah galo qof waliba karaamkiisa iyo wuxuu gari karo inuu wax ka qabto Allah tusiyo insha Allah taala amiin insha Allah Cabdiraxmaan walaal aad iyo aad kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo raayigaaga iyo message-kaas aad ka qurux badan ee aad u gudbinaysid dadka reer Jowhar sida aad ka dhawaasho reer Jowhar waa dad Soomaaliyeed oo wada ah reer Jowhar aan lahayn in la kala gogooniyay ama la kala saaro idinka Ilaahayna waxaan jeclahay caaw inay messages badan qaadan doonaan ee u istaagi doonaan sidii ay u horumarin lahaayeen degmada Jowhar ee Jowhartii la yaqaanay ee xaqiiqada ahayd iyo si kasii wanaagsan ay gaarsiin doona idinka Ilaahay waa hagaag barnaamijka gabagabadiisa dambe ayaan ku jirnaa waxaan jeclahay inaan horta aan u hambaliyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee inta badan ka xoreeyay dalkii kooxihii nabadiidka ahaa kooxaha nabadiidka waa Soomaali iyaga laftirkoodu waa caruurteennii aabayaasheenii iyo even dabcan gabdhihii oo iyaguna meesha ka maqneen inta
lamaran habaabiyey ilaahay ha naga soo hadeeyo inta u nool ayaan dhihi karaa allah naga soo hadeeyo waa caruurteennii oo aan ka walwalayno hooyo ayaa dhashay aabba ayaa dhalay ayagana allaha ka soo hadeeyo jidka marinka haawan ay ku socdaan waxaan ognahay kooxdii nabadiidka inay aysan hadda meel lagu tilmaami karo leeyahay waa deganya ama xarno inta aysan jirin laakiin si mahad ka gaadho ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed iyo dadaalka ay ku muujiyeen inay ay nabadiidka ka saaraan dalka dhamaantiis sidoo kale maalinta 12 October ee sanadkan hadda lagu jiro waxay tahay waqtigii la saaray calanka Soomaaliya waxay ahayd 12kii bishii tobnaad 1954 waxaan jeclahay inaan ugu hambaliyay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan calankeenana waxaan ognahay calan Soomaaliyeed inuu yahay ee Soomaali ay leedahay ee anagu ciida ka qaadano oo anagu ana jafjafina wax uu tarahayo malahan laakiin dal walba dadkiisa ayaa dhista wanaajiya hormariya diin islaam ayaan haysanaa oo wanaagsan waxaan jeclaan lahayn qof walba Soomaaliya inuu maalinta calanka xuso ee uu isku xil saaro Soomaalinimadiisa ila waxa ku Soomaalinimada cadeynaya waa calankaaga iyo diintaada islaamka iyo Soomaalinimada oo meesha ka maqnayn waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo dhammaan intii barnaamijka la qayb qaadatay qadka telefoonada iyo intiina daawanaysay ee waqtigooda noo hortay sidoo kale haduu ilaahay idmo barnaamijka caawa oo ahaa aan ku soo qaadanaynay gobolada dalka Soomaaliya kamid ah gobolka Shabeellada Dhexe magaalada Jowhar jidka isku xira Garsaale iyo degmada Jowhar dayactir lagu sameeynayo ee la qurxinayo ee la wanaajinayo insha Allah Allah la garab galo dadka hawshaas ku jira sidoo kale gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo oo ayadana jid ka baxa magaalada Gaalkacyo ee gaari doona degmooyinka Gaalkacyo u dhow jidkaas oo la dhisay dhawaana la bilaabay dhismihiisii oo insha Allah muddo 3 bilood ah oo socon doono ilaahay idinkiis ayagana Allah la garab galo waan ugu hambalyeeynahay qof walba oo Soomaaliya degmadii uu ka soo jeeday ama uu ka yimid ama uu ku soo baaray wax ku bartay horumar ka socda waan ugu hambalyeeynahay Allahna la garab galo sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa wariyaasha noo soo diyaariyay barnaamijyadaas quruxda badan ee dalkii Soomaaliya jooga dhanka farsamada waxaa iga caawinayay waa injineer Yuusuf Garabay iyo injineer Cabdiqaadir barnaamijka waxaan la socodsiinahay aniga Xanaan Shidana barnaamijkan iyo mid lamid intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa dhamaanteen isku duuban Soomaaliya ee nabad dawladii iyo shicib dumar iyo rag dawladii iyo shicib dumar iyo rag Soomaali way isku duubanto dan loo dadaalayaa Soomaali way isku duubanto dan loo dadaalayaa diidayo shaqada loo daariray daawanayo diidayo shaqada loo daariray daawanayo wadalkaagii doqonyahow wadadkaagii dabaalyahow wadalkaagii doqonyahow wadadkaagii dabaalyahow wadigniine isdaryeelo dadka soo raac wadigniine isdaryeelo